kulanti wacan asxaabta ku xiran kulmis media daawada halkan waxaan kugu soo gudbinayaa warbixin halis ah kuna saabsan qorshaha loo maleegayo dadka Soomaaliyeed daawada sida ogtahay dalka Nigeria waa dal qani ah dadkiisana ay yihiin faqiir sida ku dhacday jawaabta warbixintan ayaa ka heli doontaa daawada Soomaaliya waxay ku socotaa wadadii Nigeria oo kale Nigeria waa wadanka tiro ahaan Afrika ugu dadka badan lehna wax soo saar tayo leh dhinaca beerahana wax soo saar fiican leh inkastoo la igu jiray hoteelkii aan deganaa yaanyada waxa laga keenaa Yurub sharciga hoteelada qaar ayaa sidaa ah Nigeria waa wadan leh macaadin badan sida dahabka soona saaro shidaal badan dakhliga dawladda 75% wax uu ka yimaadaa shidaalka waa wadanka leh keedka labaad ee ugu badan Afrika caalamkan wax uu kaga jiraa kaalinta 12aad ee soo saarka shidaalka dadkiisa 90 milyan oo kamid ah waxay ka hooseeyaan leenka faqriga waa kala bar in ku dhow 48% Ethiopia oo aan shidaal lahayn ayaa ah 14% kaliya Kenya oo aan shidaal lahayn waa iyada waa 16% qofkiiba maalintii waxa soo gala in ka yar $2 shidaalka 40% waxa soo saara shirkadda Shell oo anaga heshiis nala gashay sanadkii hore wadanka waxa ka mamnuuca in laga dhiso warshada shidaalka sifeys shidaalka raqiis ayaa lagu gataa dibadda ayaa lagu soo sifeeyaa kadibna dib ayaa lagu soo celiyaa oo balaayin dollar ay ku bixiyaan waliba shirkadaha waxa loo sameeyaa canshuur xad dhaaf ah oo aan caadi ahayn Nigeria waxa ka jirta laba dabaqadood dhinaca dhaqaalaha sida ka muuqata nolosha magaalada Lagos dabaqada sare waxay ku nool yihiin halka aan taaganahay dabaqada waxa hogaaminayo rag uu kamid yahay Mr Aliko Dangote oo ah ninka Nigerianka ee Afrika oo dhan ugu taajirsan shidaalka waxa gacanta ku hay shirkad magacan ee Nigeria leedahay oo la yiraahdo Nigeria National Petroleum Corporation marka la soo gaabo noqonayso NNPC oo fasaxyada bixiso dakhligana soo aruurso una badan Nigerian asalkoodu qurbi joog ahaa dakhliguna badanaa soo ma gaaro bangiga dhexe oo dhaxda ayaa laga bixiyaa sanadkii 2016 waxa la xaday $16 bilyan kii xigana $30 bilyan inta yar soo xarooto waxa lagu bixiyaa diimo ma dhamaata ah oo hadii aad diin iska bixiso ama laga cafiyo dib ayaa lagu siinayaa si lagu maamulo dalku waa federaal gobol kasta waxa haysta hogaamiye ah burcad shidaal qofkii isku day in uu ka hor yimaadana waa la qaarijinayaa dawladda dhexe toos uma xukunto xataa hadii wadanka afgambi ka dhaco dawladda dhexe gobolada uma gudbi karto waxna kama bedeli karto sababta oo ah wadamo kale ay ku tiirsan yihiin ciidan beeleed u gaar ahna waa leeyihiin shacabkii baahna ayaa bilaabay in ay tubooyinka shidaalka gaar ahaan Niger Delta ee dalooliyaan oo sidii calaqi ay keymaha ku sifeeyaan sanadkii tagay 2019 waxa ay shacabku bilaqaysteen in ka badan 22 milyan oo fuusto gaar ahaan tuugada loo yaqaan Delta Avengers deegaankii wasi baaba'aya way adagta in siriiqda mar hore ay mas'uuliyiinta ansixiyeen si fudud looga baxo sida ay sheegeen madaxweynihii hore ee Nigeria Mr Obasanjo iyo gudoomiyihii hore ee bangiga dhexe Mr Sunsi laakiin Soomaaliya wali fursad ay jirto fiiro gaar ah Soomaaliya waxa jira ceel shidaal oo dhinaca bariga ah oo laga soo saari karo 1 milyan oo fuusto oo shidaal maalintiiba muddo 100 sano ah Baraawe iyo Kismaayo dhexdooda dhinaca Jubbada Hoose daawada intaas ayaan jeclaysay in aan idin la wadaago qoraalka waxa uu hagar baxay Professor Yahya Amir waxaan idin soo gudbiyay aniga Cabdinuur Tiibag dhalinyaro dalka meel xun ay ku socdo in aan badbaadino dhalinyaro isbeesata dalwa dhista حبالي جري ويقوميسي قديرانوغا ويدانا هن حبالي جري